koowaad ee tixanaha haykalka siyaasadeed ama qaab dhismeedka siyaasadeed ee baahsan ee Soomaaliya waxaan uga warramayaa fursadaha baahinta iyo dib u dhiska dimuqraadiyadda anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa diyaariyay kana soo tarjumay dhiganaha Decentralized Political Structure of Somalia waxaan baad garaaco gudka aad bahinaysa dibadii qaybta ugu horeyso waxaan uga warrami doonaa muujinta afar nooc ee suurtagal ah ee kamid ah dawladda dastuuriga ah ee baahsan taas oo ku salaysan dalalka leh dhinacyada taariikh hore oo la mid ah deegaankani Soomaalida iyo tan labaad oo aan ku xiri doono tusaalooyin ku saabsan hay'adaha dawliga ah ee soo ifbaxay kuwaas oo si iskood ah uga soo koraya Jamhuuriyadda Mideysay Soomaalida ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre dhismaha dawlad goboleedyada waxa ay ka soo ifbaxayaan qaybo kamid ah jamhuuriyaddii hore ee Soomaaliya tismooyin siyaasado kuwii hore ah iyo imika ayaa ka howlgalaya meelo badan oo dalka kamid ah fikradaha soo jireenka ah iyo kuwa casriga ah iyo hay'adaha ayaa si xirfad leh loogu soo celiyay qaar kamid ah shaqooyinkii aasaasiga ahaa ee dawladda kuwaasi oo ay kamid yihiin ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta balse imika aanay jirin cid sharciga u hoggaansan taas oo sababtay inaynan isdhagaysanin mas'uuliyadihii hore ee ka arrimiyay dalka iyo kuwa imika waxaana u wacan saraynta sharciga oo aan la horreysiinin inay libinka gaaraan ay xoroobaan ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta soo saarista shuruucda dastuurka iyo ururinta canshuuraha iyo waxyaabaha kale ee waajibaadka bulshada iyo dawladda laakiin waajibaadkii dawladda uu ka fog yahay tii dastuurka iyo danaynta arrimaha shacabka galiliyooda maanto gadalaaba maayaan goonkooda wuxuu yahay hay'adaha dawliga ah ayaa lagu dhisayaa heer gobol ilaa heer degmo horumaradu waa wax soo saarka aadamaha ee ma ahan wax si toos ah loo jiheeyay ay ku gaareen gidi waxay isku raaceen inay geeri iyo nolol ka go'aan gumaystaan fargeyn dibadeed ayaa timid taas oo ka tarjumaysay naceebka Maxamed Siyaad Barre loo hayay Soomaalida dhexdeeda waxa ay u muuqataa arrintani federaalka mid ay xamaasad baahsan ay ku soo dhaweeyeen taas oo muujinaysa in laga fogaado abuuritaanka dawlad dhexe oo awood leh sida tii uu ka arrimin jiray Maxamed Siyaad Barre waxa bilowday qabanqaabo dastuur oo meelo kale adduunka ah ka yimid taas oo daneyn weyn siinaysa shakhsiyaad qaas ah ee Soomaalida ee ku howlan dib u dhiska dastuuriga ah iyo waliba ogolaanshaha qarankooda Afrika waa dambaynayo dagiba mayno abidkeen allow isku duunikeen allow isku tixanaha qaybtiisa koowaad halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu qaybta labaad ka kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa isla socosho wanaagsan ismaqal dambe oo xiiso leh iyo Soomaaliya oo ka gudubta federaal oo ay noqoto Soomaali go'aan ka qaata masiirkooda nolosha iyo mustaqbalkooda haddaan